Assalaamu calaykum. Maafiyada Yakuza ee dalka Jabaan waxaa lagu tiriyaa inay tahay maafiyada ugu khatarta badan dunida. Waxay leedahay taariikh aad u fog waxayna jirtaa in ka badan 400 sano. Waa wajiga madow ee dalka Jabaan waxay leedahay nidaam sidii dowladii oo kale ah iyo sharci aad u adag oo ay ku dhaqmaan. Qofkii jabiyana waxaa la marsiiyaa ciqaab aad u adag. Waxay ka howlgalaan wadamo kala duwan oo caalamka ah. Saldhigooda ugu weynina waxaa fadhiya Shinjuku, magaalada Tokyo ee dalka Jabaan. Waxayna ka kooban tahay in ka badan 300,000 oo qof. Magacii ugu horeeyay ee loo yaqaanay waxa uu ahaa Borokamin. Haddaba muuqaalkeena waxaynu ku eegi doonaa maafiyada Yakuza, sida ay u shaqeeyaan iyo halka ka yimaadeen. Maafiyada Yakuza waxay bilaabatay bilowgii qarnigii 18aad waxaana bilaabay koox burcad oo la odhan jiray Borokamin oo sheegan jiray inay ilaaliyaan dhaqamada ay leeyihiin reer Jabaan. Haddaba magaca Yakuza ayaa ka yimid magaca nooc khamaarka turubka ka mid ah oo ay dhaqan u leeyihiin dadka reer Jabaan. Bilowgii hore waxay ahaayeen hal koox, laakiin waa ay kala jabeen kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay. Waxayna ku heshiiyeen markii dambe inay isku qaybiyaan 21 kooxood oo kaliya ay isugu yimaadaan hoggaanka sare iyo howlaha kooxda. Koox walbana ay iskeed u qabsato shaqadeeda gaarka ah. Yakuza waa koox ka kooban unugyo kala duwan, leh nidaam adag iyo calaamado ay isu gartaan, waana urur awow ka awow la kala dhaxlo. Xeerka ururkan ayaa ah mid aad u adag. Qofkii jabiya ama fulin waaya shaqada loo diray waxaa la jaraa xubno ka mid ah jirkiisa sida faryarada bidix si loo aqoonsado. Waxayna jirkooda ku sameeyaan sawiro ka samaysan tattoo ama shaambad. Inta badan madaxa way xirtaan. Hoggaanka u sareeya kooxda ayaa leh awood aad u sareysa. Dadka ka mid ah kooxdan waxay u shaqeeyaan in ay naftooda u huraan hoggaanka iyo caqiidada kooxda. Yakuza asalkeedii hore waxay ahayd burcad yar oo aan samayn wax falal ah oo waaweyn. Badanka waxay isku layn jireen ama isku dagaali jireen khamaarka iyo turubka. Haddaba sidee lagu dhisay ururkan? Markii ay Jabaan ku jabtay dagaalkii labaad ee adduunka ayay burcadda Yakuza soo dhex galeen bulshada. Waxayna bilaabeen ka ganacsiga suuqa madow oo ay iibiyaan mukhaadaraadka iyo alaabaha kale ee sharci darrada ah. Waxayna bilaabeen in ay iibsadaan guryo halka qaar iyaga ka mid ahna ay dhex galeen siyaasadda dalka, ilaa ay gaadheen inay furtaan bangiyo iyaga u gaar ah. Nidaam kasta oo jirana way dhex galeen. Waxay furteen shirkado ay ka howlgalaan dadka ka tirsan ururka iyo kooxo hubeysan oo si gaar ah u ilaaliya ganacsiga Yakuza ay leedahay. Qaybo badan oo ka tirsan maafiyada Yakuza ayaa xiriir caadi la leh askarta dalka Jabaan oo aaminsan jiritaanka kooxda balse aan dambi gacanta kula jirin. Haddii aad tagto magaalada Tokyo waxaad markiiba arkaysaa rag jirkooda ay ku taalo tattoo ama shaambad, kuwaasoo dhex maraya magaalada dhexdeeda. Balse firqooyinka qaar ka mid ah ayaa ka mamnuuc ah dalka Jabaan. Waxaa mar walba eryada amba ceyrsada booliiska. Sidoo kale iyaguna waxay sameeyaan fal dambiyeedyo waaweyn. Yakuza waxay xiriir la leedahay kooxo kala duwan oo ka howlgala Yurub, Ameerika iyo Aasiya. Waxay isla fuliyaan shaqooyinka la xiriira ka ganacsiga daroogada, tahriibinta iyo iibinta dumarka, hubka iyo diridda lacagaha madow. Awood aad u sareysa ayay ku dhex leeyihiin gudaha dalka Jabaan. Warbaahinta CNN ayaa sanadkii 2019 baahisay in maafiyada Yakuza ay lacag baad ah ka qaado shirkadaha waaweyn ee ka howlgala dalka Jabaan, qaarna qasab ay kaga dhigaan inay shaqaaleysiiyaan dad ka tirsan kooxda si ay mar walba u helaan siraha shirkadda iyo dhaqdhaqaaqooda. Sidoo kale shirkadaha uu tartan ka dhaxeeyo ayaa isku adeegsada kooxda. Yakuza waxay ku bixiyaan lacago si loo xanibo ganacsiyada ka soo horjeeda. Hogaamiyaha Yakuza oo ah 80 jir
ayaa mar walba boolisku xidhan, balse waxay ku waayaan wax cadeymo ah. In ka badan 25 sano ayuu ku qaatay jeelalka dalka Jabaan. Markasta oo xukunka dhamaysto waa la soo daayaa, haddana bartii ayuu ka bilaabaa. Haddaba dhowr jeer ayuu ka badbaaday xukun dil ah oo lagu fuliyo. Inkastoo kooxdan Yakuza ay geysatay dambiyo badan, haddana kama ay joogsanin inay caawiyaan shacabka dalka Jabaan. Kaalmooyinkii ugu waaweynaa ee ay u geysteen shacabka Jabaan waxaa ka mid ah sanadii 2011 markii uu dhulgariirkii ugu weynaa ee ku dhuftay meelo ka mid ah dalka Jabaan. Xilligaas oo burcadu gargaar degdeg ah u fidisay dadka ku waxyeeloobay musiibadaas, iyagoo u diray 70 gaari oo xamuula. Sidoo kale waxay sideen cunno, biyo, dhar iyo agabka guryaha. Sidoo kale burcadu waxay nadiifiyeen qarax kiimikeed oo ka dhashay dhulgariirka. Sidoo kale waxay kaalin ka qaadeen kaalmadii dadkii u saameeyay xanuunka COVID-19, waxayna dadka guryaha u geeyeen cunno, biyo xilli lagu jiray bandowga, iyaga oo dadka ku dhiirigelinayay in aanay ka soo bixin guryaha si loo yareeyo faafitaanka xanuunka. Caawimooyinka ayaa ka dhigtay mid ay sumcad ku yeesheen bulshada dhexdeeda, waxaana loo tiriyaa burcadda ugu hantida badan amba dhaqaalaha badan dunida. Sidoo kale dakhliga sanadlaha ee kooxda ayaa gaadhay $80 bilyan. Haddaba Yakuza ayaa u kala baxda 20 qoys. Tan ugu weynina waxaa la yiraahdaa Yamagoshi Gomi oo tiradoodu gaadhayso in ka badan 50,000 oo xubnood. Sidoo kale waxaa ka tirsan qoysaska Sumushi Kai iyo Inagawa Gai oo 70% ka ah burcadda Yakuza. Inta aynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeena maanta, fadlan haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir channelkeena Walaalaha Dunida. Haddaad muuqaalkan ka heshay like saar si aan u soo badino muuqaaladan oo kale una gaaro asxaabadan. Mahadsanid.